الصبر جميل ومقته weyse qofkan xeradii waa ka soo carartay waxay tiri nimana igu dhibay niman xataa haday ku dhibaan xaq waxa uu leedahay xerada meel laga dacwooday leedahay booliiska wadanka leeyahay qof kasto wax kugu dhibo waa ka dacwoon kartaa marka waxa soo dhan waa ka soo talaabsatay gabadhan yar waxay bilowday inay wiilkan tiraaho gurigaaga igeey iguurso wiilkii wuxuu yiraahday waa ku guursanaa gurigina wuu keenay marka labadoodii dariiqii la rabay guurka loo mari lahaa wuxuu ahaa hadii gabadhii uu mehersado oo reerkii ka doontay oo meherkii dhacay say sheegeen oo online lagu meheriyay waxay ahayd inay sariirtay ku seexdaan ku mashquulaan say ku soo iibsan lahaayeen waxay xiran lahaayeen waxay cuni lahaayeen wixii gurigaas dhexdiisa ay dhigan lahaayeen roadkaas dhan lama marin dadkan dad baa hogaaminaya labadoodaba hogaanka loo haayaa ma fahmay sheegay waa kalba dhinac loo jeediyay marka ma dhacayso inay maaragtay satal naqdaan ama ay dadkii u arkaan dad meel degan oo iska soo horjeedo oo isla qabsan karo ma naqo karaan marka ana hadda waxaan ba ka naxsanahay wiilkii gabadhan waa dhihi karaa gurigeyga iga bax barkay u saashala keenay haday banaankii u soo baxdo xagay ku laabanay waa in la isweydiiyo maxaradii aadee sharciga la siiyay may tixraacaysaa sharciyaan heystaa markaan meelo la maro sharciga loo maraa jiro in dadka community-ga ka shaqeeya ee markaan iyada gacanta ku dhigaan ay wax u qabtaan waaye oo maaragtay loo geeyo dadkaas wixii adi abaal u galaayo waqti u hayo Soomaali maanta haday qof jidka ku dhimanaysa xataa qof waqti u hayo ma jirto nin walba tiiso culays aha ku filan meeshuna waa qurbo marka maanta daa inta ka soo qaylisidoo hal libax ku soo tuuro diyaarad ku soo tuuro $50 maalintii aad cunaysid aa iga heshid ma daily saasay noloshaada ahaanay ina meeshas taagnaato oo maalin walba qofkii wax ku siiyo waa laga xiisaa waa laga kala taga one day waxa gaaraysaa adoo hal qof ku fiirsanayna gaaraysaa marka intay goor tahay tala fiican ay u baahan tahay gabadha asaga cunay lacag bay ku leedahay hadda waxay tii lacag baan ku leeyahay anaa biiriyay هذا الأرنتاس maya shalay walaal inaad fiirsanayso ma ogi labadoodaba life ay soo wada galeen bulshaday lacag weydiinayeen isagii wuxuu lahaa horta walaal anagu inay lacag way isku leeyihiin anagu warmahan iyaga ay siiyay taas anagu shaqadeena ma laakiin anagu waxaan aragno baan ka hadlaynaa gabadhan wadana shaqaystay joogtaa ma shaqaysato ma waxa uu taariikhtina kolba nin ku dhaganaato ma shaqaysato nolosheeda ma maya habar yar saas lama dhihi karo barkay qof forno bulaha jiro oo meelo cilad ku leh qasdiga laasiman cilad waa jirtaa صح haday jirtana meel loo maro iyo dariiqa jiro loo maro marka ani waxaan dhihi lahaa dadka community-ga ka shaqeeyo oo wadankaas joogo inay si gabadhan ay ugu celin lahaayeen ama xeradii oo meel ay jiifato loogu heli lahaa ama hadii sharciga u soo dhacay noo sheegaysa loo mari lahaa dariiqadiisa waa in qof caawiyo ay hesho horta meeshas ay ka hesho qasab waay laakiin haday bulshadan ku sii dhex jirto oo haddaba dharka ka dhigayo way waalantahay ku haayo oo aan xataa xushmaynayn qofka waalana xataa in la xushmeeyo ah aan xushmad u hayn oo darajo u hayn oo nin iyo naagba ay dul saaran yihiin iyaduna wareeray ka sii qaadaysaa iyo waali runa dhibaato weynna meesha way ka imaan doontaa waana arki doontiin aadiya maya waxa jirto horta hal dib baa jirto Soomaalidu aad buu dhibadan yihiin gabadhan hadda waxay moodaysaa dadkan badan ee daawanaya ee taageerayaasha waxaan inay gabadhan danteeda ka talinayaan walaa dantaada kama talinayaan waxay rabaan kaliya waxay ku qosqoslaan oo masaasitriya kuwa Soomaalidu waxa uu jeceshahay hadda naaqawn halka maris marka arkaan si wadeegan maasha uu sacabtumayaan maxaad uga sacabtumaysaa wax wanaagsan qofkan maba sameeyay oo buu jeeday maxaad uga sacabtumaysaa runta u sheeg qofkan waxa tiraahdaa waxaas wad ku qaldanay hadii adan joogin taageero kuma noqon maya bulsho run isku sheegaysa hadaan banaanka ma la daadsanaa lahayn moogtahay anaga aba meel walba wala isku ma sheego ee qabiil naqbal isku ma tar naftaada garo shakhsiyadaada qiimeynaya wax yar aadina wadaagna habeen walba meel doono taas aan ka naxsanahay oo yacni haday maanta hotel ijaarato shalay labadii libaax iyo saddexdii libaax oo lagu siiyo amaanta kire ku cuntid oo cunno ku cuntid way dhamaanay lacagta hadda laga rabaa marka dawris wala waxba kuma qabanayaba waa dawris wax aadan bini aadan gacantiisa lama saarnaan karo
marka aadan ugu baqaa gabadhaas adiga ninka hadday israbaan waxay inay laafka intii caruuska tahay iska dayso ninkeeda wada tashadaan waxan maxaa sameynaa nolosha maxaan ka bedelnaa anu shalay kaligii baan fikrado badan baad igu biirin kartaa dhageyso ana fikradaan kugu biirin karaa maxaa isku darsanaa walaa nin ay isfahmi karaan meeshaan ma yaalo ma jiro maya nin hadduuba ahayn nin maanta mas-uuliyadeeda qaadaayo oo dhahaayo waa kusoo guursaday saa sheegaysa waaye oo yacni tala keenaayo oo gurigii wax keenaayo oo naag la qabo u ekaysiinayo haa laakiin dad tirsanaayo iska soo horjeedo iscaayayo isdagaalayo ayagoo 3 beri wada joogin dad ayaga dhanba wareersan waaye marka meel ma wada joogi karaan waxaa dhici karta gacan inay imaato waxaa dhici karta inay isdilaan waxaa dhici karta midkood inuu xabsi galo marka isaga eerli khayr wuxuu ugu jiraa gabadhan inuu banaanka ka maro aniga saan qabo waaye inuu ka leexdo iyadana meeshii dowladdaas ugu talagashay inuu banaankaas ka maro safetygiisa ku jiro sababta oo abaayo waxaa ku dhahaya inuu ruuxa maxaa la dhahaya in gabadhan la caawiyo waayo in gabadhan ruuxa waxaa caawin kartaa maanta aniga haddaa kuu baahanahay oo adiga iisoo istaagtid oo waqtigaaga iiga soo baxdid noloshaada ilaa waqtigaaga noloshaada adaa u baahan aa isiisid marka hore inaad taankiyo ku dhaho waay mar labaadka inaan ku dhageysta waay dhag ku dhageysanaysa inaan leeyahay waay mar saddexaad maskaxdayda inaan 2 jeer ka fikir waay walaasha waxay kuu sheegaysa ma saxan mise waxaana adig ku socotid taada inaan wax ka qaadan kara waay teedana ku darsan kara waay qofaabada dhihi karin banaa walaalay saan waxaan ma aha saan jaahilnimadiina intay tahayba maxaa la oo qof haddii ruuxii toosiyo eebacada u aragtay caynaysa ugu qabaynaysa cay midiyadana rabata inay ku dhex qabaysato horta qof la caawin kara anim u jeedo runaa baa la isku sheegaa mogtahay ruux la caawin dadka libaaxa u diraya ma meel u diraan bay weyn may sadaqa baxsadaana maxay libaaxa kala doonayaan naagta kadib oo la caawin kara uma jeedo laakiinse gabadhan dawladda alxamdulillaah rabbil caalamiin adduunka meelaysa cag soo saarin si sheegaysa malaha 8 nin soo guursaday xataa waa ka soo fakatay 3 leeba badi maarad ku celcelisaa uur aysan maxaa la dhahay intay uuraysatay ka soo dhacay markiiba ilmaan dhalay dhahdaa أنا روح أو مسكحديس أوكي تها مجهده روح العاون كرنا ومجهده لكن ويل كان أكوسو هري والله مالنكي ودهين وإسلا دقني حتى أنا دهين واقس قبنا أنا كشيء كذا نبرانك وأركبه وأكو لابو قف العاون كرنا ومجهده ننا وش أجو يا أدونك وحانيت نن ويل كان حتى عماش أسرنا كسقط نن مركه هوستيس كسو هذا الشيء ومالنكي كودا مات هوستيسي جورجيسي أسجع أساس أكلا فقد إسلام مركبه dilid ee ugu dartay marka abay wiilkan asaga ba siifta u baahan banaankaas ka mar gabadhan wiil haduu dhahay gabadhan ayada ma qabiilkaas intuu qabiil sheegay maxaa la wiilka u heelinay uma heelinay xaq darro iyada hadii lagu hayna ayada u heelina hadii isaga aan warka dhibaato inay ku soo socoto inaan u sheego meeshaan Yurub waaye ogaawya maanta hadda intay qaaday ee booliisku u tagto wiilkaas asaga naftirkiisa balaaya la soo hoos dhigaa inuu ka fogaada urur ayadana horteeda hor alle لكن ما أقدر هيس وال إقباء حتى نين كلا هذا على سوسيحنا مركو هريتابا ميشان وحفي عنك سوسعني حتى نين إيسو سعلاي كتري مسقاون وأنا راعايا صبتو نين أنا waxaan ka shaksanahay kuwa qaawan midaan la saaxiibto oo looga boodbooda meeshan oo lacag la isku leeyahay iyo bilaa micna loogu weerarsa caawina gabadhan u baahan tahay iyo lagu meeraysto waxyaalaha oo bilaa micnaha waa laga qurux badan yahay runta la isku sheegay naag dhahaysa ninkii haddu isoo bixiyay ninkaaga haddu kugu xanaaq waa istili kartiin ninkaaga haddu kugu xanaaq adaa dili karti asiga ku dili kara adduunka caari arab iyo daan u baxay mudada isku dhigin bay banaanka u baxday haddana dhahayso intay hotel seexatay oo qof seexiyo ilaahayga aclam maanta inuu la joogo u baxday mudada isku dhigin bay والله يا إلهها لقى عبصده هاي ولا لو قدت أنا سكول عن مجرى أدون كبلاد